abwaanada caanka Hibaaq Maxamed Cabdullaahi ahna abwaanad Soomaaliyeed oo dhawaan soo gaartay dalka Soomaaliya ayaa soo dhaweyn gudaha magaalada Muqdisho waxa uu sameeyay wasiirro xildhibaano saraakiisha ciidamada xoogga ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. abwaanada Hibaaq Maxamed Cabdullaahi ayaa hore waxay u sameysay suugaan wadani ah oo ay ku cabirayso wanaagga dawladnimada. مسؤوليتي abwaanada u sameeyay soo dhaweynta qada sharafta ah ayaa ka codsatay inay sameyso bandhigyo wacyigelin ah oo lagu baraarujinayo bulshada Soomaaliyeed. aad baan u soo dhaweynayaa waana hambalyeynaya Hibaaqna waxaan leeyahay welcome anoo ku jecel inay heesaska wadaniga aad u jeceshahay oo ku qadarinayo haddana aan danaynayo inay waxiisii dalkeeda u timid waxaan talagalay munaasabad kooban oo daafur ah لولا سودوينيو أبواندا أما فناندا هباق محمد أروتي أناك وحنوك اللي فينا سودوينا أيتهاي contribution كي كارنتا وجرتو وعيقرين تدرك الصوماليات سنة نوضة من مرة دولة وناقة دليرة كان دودي جيرت أيضا لم يتكاولك بغير وحناه إمارة دلكوا دلكيني ugu dambeyntiina Hibaaq Maxamed Cabdullaahi oo ilmeynaysa ayaa ballan qaaday in Muqdisho ay ka dhigi doonto bandhigyo iyo suugaan la yaab leh oo ugu tala gashay dadka Soomaaliyeed. waxaan tagay jasiira meelo badan oo ma aragtay markii dadka qurba jooga sida Ridwaan oo kale wali ma aan tagin geesinimadaas xagee ka keentay. alxamdulillah waddanka waa joogaa insha Allah bariya soo socdo bandhig faneeyada waa soo sameyn doonaa isbitaalka Xabeeb waa booqan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waa jecelahay in badan buu ila soo xiriiray shaqadu wahayn shaqo weyn waa disay balka wallahi aad iyo aad ma aragto waxyaabaha aan aad iyo aad aan uga fakaro taas kamid ah waddankuna waa nabad ma sha Allah. fanaanada ayaa waxay kamid tahay fanaanin dhowr ah oo muddo qurba joog ah gudaha Soomaaliya dib ugu soo laabtay. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Hon Cable TV, magaalada Muqdisho.